السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز سود هذا وما حي فرق ودحية نتورك iyo إنترنت. نتورك واسكو حركة لبا آلادود iyo ka badan kuwaasoo isla yaala meel isu dhow. waa sida computer lagu xiray computer kale iyagoo loo adeegsanayo noocyada topology-ga LAN. ujeedada ugu weyn ee la isugu xirayaan waxay tahay in kombiyuutaradaas ay wadaagaan xogaha iyo macluumaadka iyagoo la isku xirayo boqolaal kombiyuutar ilaa kumanaan kombiyuutar. waxaa maamulaya ama kontroli kara shakhsiyaad loo yaqaan network administrators. waxaa loo adeegsadaa local area network, wide area network, campus area network and home area network. waa maxay internet? internet wuxuu aad ugu ballaaran yahay network-ka. waa isku xirka network-yo badan taasoo macnaheedu yahay network-yadii ayaa la isku sii xiray waxaana ay noqonaysaa internet. waxaa example-ku ugu weyn uu noqon karaa wax loo yaqaan WAN oo ah wide area network. internet wuxuu isku xiraa malaayiin device kuwaasoo yeelo daafaha dunida. ma jirto cid gooni u maamuli karto internet-ka waxaana loo adeegsadaa wax loo yaqaano www world wide web. network waa wax kooban laakiin internet waa wax aad u ballaaran. waxaan rajaynayaa inaad fahantay mowduuca internet iyo network. haddii la isbarbar dhigo waxay noqonayaan network waa wax kooban halka internet ay yihiin networkyo badan oo la isku xiray kuwaasoo yeelo daafaha dunida. la soco mowduucyada kale kuwaas oo aan ku faaqidi doono waxyaabaha la xiriira tiknoolajiyadda.